وانقرقري دراتينا قرح هبانكينا دحن سانساو هذا القرح يا غربان لي سوق بتمتوسن أمنك وحمد شلنينو وحنا يستوى ماله سرير تنحل كل سحدي من كل شيء فاه أدين وصداسه هنا عاوية هلا عاوية أنا وين بكا قاتيجو أنتي خير سنة وإهاجة وشامن قطع بردوان قطع كان لنا واحد شقة ما هيستو وحن سلهم صوحي يروتي بان واحدة دميان وحين وين واي مركز نفار كيدا نوال ركتا وحن شاشان واي عندي لهي كرر للنقطة إن يعون إنسان وحول بيس إنسان يان ربا عدد لإيه عاوية إن شاء الله تعالى دتك ما هيستان يعني هوي ما هيستان ما مدن waxay noo sheegaysaa ama anaga aan uga maraatin qoraynaa inay haysan yani guri ay seexato habeenkii inay dhaxan ka seexanin oo habeenkii indhaheeda ay ku soo jeedo wad aragtaan hadda meesha ay ku nooshahay iyo meesha seexato wad aragtaan marka insha Allah ta'ala ninkan waa nin ay dhashay waa ninka yani hadda wax ka sugaysay waa nin xanuunsan oo sagaal ciyaal haysta oo waxba aan haysanin shaqo aan haynin marka muslimiinta waxaan ka codsanaynaa insha Allah ta'ala ilaahay haduu ka raali noqdo inay يعني unnaxariistaan oo yaana qof walba muraad kiisa uu guto waayo sidaqadu waxa weeye wax badan bay yaana 70 balaayo ay dadka ka difaacdaa qofkii muraad leh inuu muraadkiisa yaana muslimiintan wax ku soo sidaqaysto sifo muraadkiisa u gaaro waayo nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu noo sheegay muxuu yiri maralkiina war sidaqa u bixiya oo sidaqadka ku daaweeya qofkii yaana jiran qofkii yaana dan haysa qofkii yaana muraad leh muraadka waxaan ka codsanaynaa أنا وين بكا قاتيجو أنتي خير سنة وإهاجة وشامن قطع بردوان قطع كان لنا واحد شقة ما هيستو وحن سلهم صوحي يروتي بان واحدة دميان وحين وين واي مركز نفار كيدا نوال ركتا وحن شاشان واي عندي لهي كرر للنقطة إن يعون إنسان وحول بيس إنسان يان ربا عدد لإيه عاوية وحليسية وشليسية وقر لا يدسه وبلا لا يدسه وانقرقري دراتينا قرح هبانكينا دحن سانساو إلهي بقى قرآن كيسو كشيء ضدكم مسلمك إنه ولا ليه وحن كعصنا وحي إلهي نول بوحو هيستو أو كاري كرو إنه نوصل دقيستو waayo ilaahay baa wuxuu yiri isku naxariista marka isku naxariisata ma idin naxariisan ilaahay baa quraankiisa ku sheegay muslimiintuna way ahaan khaasiyaan Soomaalida dadka islaamka oo isku naxariista wax dhib badan oo maaragtay jira oo dadku way iscaawiyaan waxaan ka codsanaynaa dadka muslimiinta ay muraad kale in ilaahay aakhiri iyo adduunba inay liibaamaan dadka raba in wax haysta ilaahay gacantooda wax soo galiyay wax sidaqaysta hor ilaahay wax oo la baxa in ay waxay heri karaan ay nagu soo sidaqaystaan dadka macnaha islaamka ee iska tabaalaysan iska rafaadsan baanahay waan u ducaynaynaa in ilaahay muraadkooda sahlo mararkooda ilaahay shaafiyo miitidooda ilaahay u naxariisto masiibo dhamaanteed ilaahay ka koriyo mowdkooda ilaahay aakhiro ilaahay idamkiisa waxay ka yaabahayaan oo xun oo cadaabku u weyn yahay in ilaahay ka xijaabo وحستان يعني هوي ما هيستان ما مدن waxay noo sheegaysaa ama anaga aan uga maraatin qoraynaa inay haysan yani guri ay seexato habeenkii inay dhaxan ka seexanin oo habeenkii indhaheeda ay ku soo jeedo wad aragtaan hadda meesha ay ku nooshahay iyo meesha seexato wad aragtaan marka insha Allah ta'ala ninkan waa nin ay dhashay waa ninka yani hadda wax ka sugaysay waa nin xanuunsan oo sagaal ciyaal haysta oo waxba aan haysanin shaqo aan haynin marka muslimiinta waxaan ka codsanaynaa insha Allah ta'ala ilaahay haduu ka raali noqdo inay yani unnaxariistaan oo yaana qof walba muraadkiisa uu guto waayo sidaqadu waxa weeye wax badan bay yaana 70 balaayo ay dadka ka difaacdaa wiilka curyaanka waxa wuxuu jiraa 6 sano jir waxa weeyo nin wax loo qasay oo caano oo loo qasay in afka loo saaray mooyee ma hadlo gacanta wax kuma qabsado ma fadhiisto waa indha ku dhowrahayo qofka islaamka dadka muslimiinta islaamka waxay siiyaan umba wax ugu gadnaa oo caanaha loo qasay la siiyaa kuwan kale hadda waaba kuwa hadli oo wax qaadan oo adimo leh oo socda waa yeelkaas iyadana halka fadhida waa akal iyo wax weyn qof cuni ma aha waa qof in caano loo gado mooyeen
wax magaalada iyo wax jilicsan loo soo gada mooyeen wax culus aan cunaynin marka kulley danaha hadda iyo dhibaatada iska jirta mid daaweeyo ilaahay baa deeqda bixiya waxaan idinka codsanaynaa idinkana in ilaahay muraadkiina sahlo muraadkiina oo dhan ilaahay siino shafaacada nabiga ilaahay idin siiyo ilaahay idinka xawlka nabiga ilaahay idinka waraabiyo ilaahay idinka jidka siraaqta ka dhibla ilaahay inuu idinka dhigo jahannaba qiiqeeda qurmuunkeeda in ilaahay idinka duwo janna firdawsa in ilaahay idinku bishaareeyo waxaan idinka codsanaynaa dadka muslimiinta ee na maqlaya in ay waxay heli karaan ugu soo sidaqaystaan annaguna waan u ducaynaynaa in ilaahay qiyaamo ilaahay in ilaahay ugu shafeeco naxariista ilaahay inuu ilaahay idin siiyo naxariista ilaahay laysaan wadaadka walaalkeena suu iskaga warbixiyey meeshan waxaa yaala cunug yacna barlaati ah oo yacna u baahan kaalin caafimaad u baahan waad ogtihiin isbitaalka xawaji baybu semberi ayuu soo galaa oo yacna lagu dabiibaa isbitaalkii marka daawo meeshii waa looga waayey yacna waxba takhaatiirtu way ka qaban waayeen wuxuu u baahan yahay yacna isbitaal sare in la geeyo meelaha Nairobi isbitaalada waaweyn loo qaado haddii waad aragtaan meeshii laga qaadi lahaana ma jiro dadka tabartiisii iyo waad aragtaan yacna ayagii baaba waxala marka islaantii yacna way umushay oo xaala mooyeen habeen hore umushay wiilka iyo carruurtan dhashay umul waad garanaysaan dhibkeedii wax la siin hayo ma jirto wax afka laga saaray ma jirto marka dhammaan muslimiinta waxaan ka codsanaynaa ilaahay inuu u naxariisto ayagana inay walaaladeen u soo naxariistaan insha allahu tacaala inay yacna soo caawiyaan oo yacna hoy u dhisaan oo nolol siiyaan waxaan ka codsanaynaa wiilka yacna barlaatiga ee kharash loo leeyahay ee maanta yacna xubnihiisa qaar ay dhaqdhaqaaqahayaan inay asagana istaal la geeyo oo goob caafimaad la geeyo marka insha allahu tacaala qofkii walaalkii wax la jeclaadana ilaahay baa wax la jeclaanaya